baraha bulshada ayaa mar qura caawa isu bedelay in ay ka falanqeeyaan Ilhaan Cumar iyo sayga cusub ay hadda guursatay Tim Maynard. bal hadda aan idiin dulmaro dadka ugu caansan ee soo dhigay baraha bulshadooda. Amah Media waxa ay tiri Ilhaan Cumar ayaa si weyn dhaleeceyn ugala kulantay saxaafadda Mareykanka kadib guurkeeda nin aan haysan diinta Islaamka. The Fox ayaa soo qortay sidoo kale, sidee gabar mu'minad ahi u guursan kartaa nin Masiixi ah. NBC TV ayaa warkooda ku soo qaatay Ilhaan Cumar oo guursatay Mareykan caddaan ah, laakiin guurkeeda ansax siduu ku noqon doonaa marka diinteeda laga eego. New York Times ayaa boggooda ku soo qortay Ilhaan Cumar aabaheed wuu ku caraysan yahay guurkoodana kama soo qayb galin, waxay guursatay qof aan Islaam ahayn. Haddaba su'aashu waxay tahay, Ilhaan guurkeeda ma sax baa? Su'aashaas waxaa Allah subxaanahu wa tacaala uu ka yidhi, ha guursanina kuwa Ilaahay u shariig yeelay ilaa ay ka rumeeyaan. Addoon Ilaahay rumeeyey ayaa ka khayr badan mid Ilaahay u shariig yeelay. Haba idin cajabiyo midka Ilaahay u shariig yeelay. Waxaa xitaa ka hadlay culamo diinka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, waxaana hadda hadalhaynteedu ugu badan tahay laga dheehan karaa baraha bulshada, haddii ay tahay Facebook, Twitter iyo YouTube intaba. Fadlan haddii aad igu cusub tahay channelka, subscribe saar, waad mahadsan tahay.